aad baad u mahadsantiin inaad nagala soo qayb gashaan xafladan dhagax dhigga oo ku saabsan xarun lagu talagalay inay bulshadu waxa way ku kulanto xaruntaas waxay u adeegi doontaa dhammaan dadka ku nool gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Kaalkacyo waxay si qaas ah ugu sii adeegi doontaa dadka barakacayaasha iyo dadka qaxootiga iyo dadka magaalada degan hadafka iyo ujeedka laga leeyahay waxa weeye inay dadkaas helaan madal ay ku kulmaan xogta isku wadaartaan dhalinyaradooda ku ciyaaraan email iyo library oo dadkii inay qofkii raba inuu wax akhriyo wax daalacdo meel waxa way fursad inuu ka helo hawshaas marka ballaaran baa meesha laga sameyn doona hadii rabraali ka dhigo waa wax maaragtay dhaxalgal u ah gobolka Mudug dhaxalgal u ah waxa way dhalinta ku nool magaalada Kaalkacyo iyo dhammaan Puntland oo dhan waxaan rajaynaynaa in dhammaan dadka ku nool inay aad uga faa'iideystaan meeshan inay noqoto meel dadka dhan ku soo hirtaan ummadda dhan ay ka faa'iideysato in meeshii la dhiso waxa weeye waa wax aad u fudud laakiin tan muhiimadda waxa weeye joogtaynta iyo meeshii inay socoto iyo inay sii shaqeyso waxaan ka rajaynaynaa ilaahay idinkiis dhammaan dadka ku lug loo dhan sii socoshada meeshaas annagu kaalinteena waxay noqon doontaa inaan meeshii waxa weeye dhisno dhamaystirno dabadeedna waxa weeye dawladii oo joogta iyo maamulkii oo jooga si wada jir inaan ugu wareejino aad iyo aad baa u mahadsantiin runtii aad baa ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno مشروعاً أي فنكس بعزة هذا UNHCR Relief International أي ديسيسو فرحات كلو جونيا نوتا قدومية قبل كينو تشوجو قدومية دقمدو تشوجو كوحيجنا تشوجو قديجي سبورتينكا قدومية سبورتيكا دلنا يردا يتشوجان هاد بقى فرحسنا إنك سوق يبقرنا يلا فنكنا بعزة هذا UNHCR هذا Relief International أي شغلة قبانيسو وجدت loo sameeyay barnaamijkan waxa isdhexgalka bulshada maadaama uu dalku markii hore burbur iyo soo maray dad badan oo barakacayaal gobolka ay degan yihiin dad badan oo qaxoontiya oo ajaanib oo ka yimid wadamada deriska ay joogan ay wadanka joogan in dadka la isu kana isdhexgalaan meel ay ku wada sheekeysan karaan meel ay ku wada ciyaari karaan meel ay wax ku wada akhrisan karaan ay helaan marka madal kulmisa oo dadkii u dhaxaysa oo aan cidina gaar uga lahayn inay helaan ujeedka ugu weyn oo barnaamijkan fanka loogu baxshay saas oo ahaa marka in dadku isugu yimaadaan meel kulmisa madash oo arkaan dadku inay yihiin dad siman oo wax wada leh sida ay markii horeba ay dawladdu ay shuruuc badan ku soo saartay ama ha noqoto barakacayaasha ama ha noqoto dadka qaxoontiga ama dadkii deegaanka ha noqoto marka madal kulmisa sportiga aan laga lahayn duu barakacay barakacay iman karo ku ciyaari karo wax ku qabsan karo kii deegaanka kii qaxoontiga ah oo ajnabiga ah isaguna iman karo oo ay ku wada kulmi karaan ujeedkaas maaragtay loo fangareeyay wuxuu ka koobnaan doonaa centerkaas ay loogu talagalay bulshada isugu timaada wuxuu ka sii kooban yahay meeting hall ay bulshadu ay ku kulmaan wuxuu ka kooban yahay library-gii dadku wax ku akhrisanayeen wuxuu ka kooban yahay qol yar oo dhalinyarta yararka carruurta moogtahay si lagu ciyaarsiin doono wuxuu ka kooban yahay xafiiskii wuxuu ka kooban yahay 4 musqulood oo gabdhaha iyo wiilasha loogu talagalay wuxuu ka kooban yahay qaybta security-ga meeshaas uu ka shaqayn lahaa cabirkiisu wuxuu taabanayaa wax weeyaan 30 mitir iyo 18 mitir ayuu ka koobnaan doonaa wax kale mashruucan uu taaban doonaa kor u qaadaya security-ga fence wall-ka labada dhinac iska soo horjeeda gidaarka inaga dambeeya hadda la dumin doono centerku wuxuu ku dhici doonaa waqti qaybta bidixda garoonka marka laga yimaado wadada koonfurta xigta gidaarkaas wuxuu cabirkiisu yahay 110 iyo 110 waa 200 iyo moogta 230 mitir intaas mashruucu ka kooban yahay waxay ka qayb qaadanayaan labada darbi oo iska soo horjeeda kan koonfureed iyo kan maaragtay waqooyi oo dhismaha garoonka qayb ka noqonaya runtii waa farxad aad u weyn waan ugu mahadcelinaynaa dhammaan ciddii arrintan soo abaabushay runtii duqa degmada arrintan qayb buu ka ahaa kan gobolka sidoo kale hay-adahana waa ugu mahadcelinaynaa maantana farxad bay noo tahay inuu barnaamijkii noo dhagax dhigmo waa fursad qaaliya waxaan uga faa'iidaysanayaa garoonkan Cawaale ummadda Soomaaliyeed baa iska leh cid kastoo Soomaaliyana way ka faa'iidaysan doontaa waxa meesha ku jira centerkan inay ka faa'iidaysan doonto cid kastoo marti noo noqonaysa hadday noqdaan qaxooti meel fa ka yimid iyo meel suka ka yimid iyo hadday tahay Soomaalidii inta waddanka ka tagtay dib u soo noqotay ayaduna way ka faa'iidaysan doontaa marka waxaan leenahay garoonkan waa garoon ummadda dhan wada leedahay qaybihiisa kale maadaama UNHCR Relief ay intaas ka qayb qaateen bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay
ka qayb qaata garoonka inta ka dhiman waxaan rabaa inaan ku darsado garoonka roogiisii iyo qalabkiisii waan dalbanay lacagtii noo soo ururtay oo aan community ka helnay waxay noo noqotay lacag 90 iyo wax la jira ah 485 waxaan ku dalbanay qalabkii lagu sameyn lahaa haday tahay roog haday tahay injineerada ka shaqeyn lahaa iyo haday tahay 3 kursi oo la dhigi 3,000 oo kursi oo la dhigi doono tarabuunka marka bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay tarabuunkaas intaas leegu noo banaan yahay anaguna sugayaa waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano dhamaanteen dhalinyaro ahaan anoo ku hadlaya magacooda waxaan kaga faa'iideysanaynaa barnaamijkan inaan xafidano ilaalsano ujeedada u sameeyeen aan xooga saarnay si ay uga fuli lahayd aad baan ugu mahadcelinaynaa waana ku faraxsanahay waana horumar u soo kordhay gobolka Mudug iyo degmada Gaalkacyo waana wax ay lagu faan karo ay dhamaan ummadda Soomaaliyeed ku faan karto meel ay isugu imaanayaan dadkii qaxootiga ahaa iyo dhalinyaradii kale oo isdhaxgal laftigeedu bay ka mid tahay saa ka waraysan sportskuna waa isdhaxgalka bulshada waxa way dad aan isku luqad ahayn baa isku team ah oo hal kalaab ka wada tirsan ismana la yaqaanaan sida dawalkii wala sheekaystaan waxa isku keenay waa xirfadda sportska marka aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa relief barnaamijkan saad noogu keenteen waa inaga gudoonay markii la joogo meeshaan oo kale ama meel ciyaareed ama meel kalaab ah oo la rabo in wax walba laga helo waxa ugu muhiimsan waxa weeye in laga helo meeshaan oo kale ama sportinka kale waxa weeye waa garoonkii lagu ciyaarayay oo awalba loo sameeyay haddana roog loo dhigayo waa in laga helaa hall ay ku qabsadaan xafladahooda waa in laga helo library-gii ay wax ku akhrisan lahaayeen waa in laga helo cafeteria-dii waa in laga helo suuliyaashii waa in laga helo meesha dhar ku bedelan lahaayeen marka arrintii ugu muhiimsanayd weeye mashruucan hadda meeshan maanta UNHCR iyo relief ay ka wada qabanayaan wuxuu noqon doonaa mashruucan waxaan malaynayaa maanta ka hor inaysan waddanka ka fulin meelo badan ay ka soo fulin jireen laakiin wuxuu noqon doonaa insha Allah mashruucii ugu waxtarka badnaa sababta uu noqonayo mashruuc ugu waxtarka badnaa macnaha kama wado inuu noqonayo mashruuc ugu ballaarnaa kama wado inuu noqonayo mashruucii dhismihii ugu qurux badnaa inuu noqonayo laakiin waxaan ka wadaa intifaaca laga intifaacsanayo ama shaqada lagu qabanayo ama faa'iidada uu yeelan doonaa waxay noqon doontaa mashruucii runtii ugu wanaagsanaa ee laga sameeyo sababtana waxay tahay meesha laga sameeyay meeshaani waxaan ku wadnaa inay noqoto meel runtii magaalada oo dhan u soo xiisto ama magaalooyinka looga soo xiisto markii laga helo meel xafladii lagu qabsanayo markii laga helo garoon rooga oo lagu ciyaarayo markii laga helo tarabuun qurux badan oo kuraas casri ah ay ku rakaban tahay markii laga helo library markii laga helo meesha jimicsiga markii laga helo cafeteria waxaas dhan waxay ku khasbanaanaysaa in magaaladu ay noqoto meesha kaliya oo dadku ay u xiisayaan waxaan u mahadcelinayaa ciidan cidii wax ka bixisay dhaqaalaha lagu dhisayo sida hay'adaha iyo dadkii shacabka ahaa oo ururiyay lacagta hadda lagu diray qalabka dibadda laga diray aad baan ugu mahadcelinayaa dadka kale oo inta hartayna oo labada darbiyo iskaa wax u qabsada lagu dhisayana waxaan leeyahay aynu ka qayb qaadanno waa dhisan karnaa lacagna waa haysanaa haddii alla idmo waana dhisanaynaa asaga iyo jidka laamigaaba aan u hurno lacagta oo aynu dhisano sidaan horeyba u dhisan jirnay oo iskaa wax u qabsaan wax ugu dhisan jirnay garoonkan hadda ka hor iskaa wax u qabsaan lagu dhisay waqti dheer buu joogay haddana si fiican baa loo dhisayaa oo ka casrisan sidii awal loo dhisay